maxaa si gaar ah ku xiisa geliya wax si gaar ah ku xiisa geliya أنا ورد حياة بدن بحيس جليا سيجار وحيس جليا حوين أخس كي قرار ولا بدي شيء نقول على هاي هدي أن قبلنا أنا كعاجزين مركز طوال متخناي يجي عن سمينينا وحاجز أنا دريم وقتيada firaaqada inta badan maxaa qabataa أخس قرار عبد الرزاق ahaan bal akhriska ama qoraalku muxuu faa'iido leeyahay labadu faa'iidooyin aad u weyn bay leeyihiin akhrisku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha aqoonta ay ku koobcdo ee qofka aqoontiisa ay ku korodho si guud marka waxbarashada la eegana waxa ku soo ururtaa inuu qofku wax akhriyo marka kobaca bulshada iyo mataqaanay in bulshada isbedesho waxyaabaha isbedelka ugu waaweyn dunida dhaliya akhriska ayaa ka mid ah qof markuu wax akhriyo ee uu mataqaanay aad u akhriyo ayaa waxa ku dhalan karta hadii uu ku fiican yahay hibada qoraalka qoraalkuna dhaxalka ummadda iyo fikirka ummadda iyo bulshadu sida ay u socotay sida wax u arkayso qayb marka kaliya marka labaduba faa'iido badan bay bulshada u leeyihiin xadaarad kasta oo dunida soo unkantay ama jirtay qayb weyn waxa ka ah wax loo yaqaano qoraalka markaynu eegno Soomaaliya dadkii ugu horeeyay ilbaxnimada keenay dadkii waxay ahaayeen waxbarashada ugu horgalay ee qoraalka iyo waxyaabaha sameeyay marka labaduba faa'iido weyn bay bulshada u leeyihiin haday noqoto dhinacii waxbarashada haday noqoto dhinacii ilbaxnimada haday noqoto dhinacii hogaaminta iyo siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo way wax kasta oo mataqaanay hal abuur cusub qayb bay marka ka yihiin akhriska iyo qoraalku ilbaxnimo kasta oo lagu horeysiyo intaad wax qoraysay ama aad wax akhrineysay book si khaas ah ku soo jiitay hal iyo labo maxaad ka xusi kartaa book badan baan akhriyay ilaa 4 sano ugu dambeysay 3 sano ugu dambeysay waxaan lahaa jadwal joogto sanadkii ugu yaraan 30 book ilaa 40 book aan akhriyay marka waa 4 sano ilaa 3 sano ugu dambeeyay book badan baan akhriyay booktaasi dhamaantood saameyn bay ugu yeeshay laakiin way kala badnaayeen laba book baan xusayaa aan oran karaa waa labadii book ee kugu saameynta badnaa book la yiraahdo Rich Dad Poor Dad aaba faqiir iyo aabahoodana sanadkii 2020 ayaan akhriyay wuxuu ka warramayaa wax loo yaqaan financial education ama qofku dhaqaale sidii uu ku abuuri lahaa ama waxbarashada dhaqaalaha la xiriira ayuu ka warramayaa marka bookgaas saameyn bay ugu yeeshay markii aan akhriyay noloshayda wax badan iyo habkii aan arkay lacagta iyo dhaqaalaha iyo qofku siduu waxyaabaha u maareyn lahaa oo inta badan aqoon dunida ka dhiman mataqaana waxbarashadeena ayuu markaa ka warramayay bookgaas markaa saameyn xoog leh iyo fikir togan ayuu ugu yeeshay bookga labaad wax weeyaan bookga la yiraahdo Women Affairs waxa qortay Naadir Ismaaciil sanadkii 2019 bay soo saartay waa biography taariikhdeeda ka warramaysa waa gabadh ilaa hadda 3 jira dhowr ka sanay soo nooleed iyo taariikhdeedii wixii soo maray iyo dunida sida ay ahayd iyo Soomaalidu sida ay ka warramaysa buugga laftiisuna markaad eegto xasuus qorka iyo si guud nolosha iyo qofku sida uu mataqaana horumar u gaari karo ayuu saameyn weyn isna ugu yeeshay labada buug oo oran kara waa labadii buug ugu saameynta badnaa nolosha wax ka bedelay kuwa kale way jiraan